waa xaalad xanuun badan oo kuu muuqanaysa marka aad tagto isbitaal Martini. Aadan Turaab ma aha magaca saxda ee waalidkan, balse waa magaca ay ula baxeen maamulka iyo howlwadeennada isbitaal Martini. Ma ahayn dhaqan lagu yaqaano dadka suuban ee Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslimiin ah in dayacaad lagu sameeyo waalid marka uu gaaro xaaladda gabownimada. Aadan Turaab muddo ka badan 2 bil ayuu ku jiraa isbitaal Martini oo lagu daryeelayaa kadib markii laga soo qaaday waddo lagu soo tuuray, walina dadka soo tuuray ay isku dayeen in ay dilaan, taas oo keentay in maskaxda jug xoogan ay ka gaarto. Alla dila ayaa dhinta. Aadan Turaab ayaa miir daboolan muddadaas 2 bil ah. Male wax hadal ah ama dhaqdhaqaaq. Tuba laga suray sanka ayaa laga qoodiyaa waalidkan. Xagga Alle ayuu ka nool yahay maahe. Uguma talagelin in uu sii noolaado dadka soo tuuray waalidkan. sida waxay noo sheegay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Jalaaludiin. 1 Juulaay ee sanadkan hadda ayaa waxaa noo imaaday xilli aroor ah bajaajle wada qof oo bukaan ah oo koomo ku jira oo maxaa la yiraahdaa naafa ah. Qofkii waa admit gareennay wuxuu inoo sheegay qofka soo qaaday inuu ka soo qaaday buundada degmada waa bari. qof da ahaan aan ku qiyaasno waa 65 ilaa 70 jir. sida muuqatana yani laga soo tuuray meesha. dayaca inta la egay loo geystay waalidkan ayaa ilaa hadda aysan jirin cid kaga daba timid muddadaas uu ku jiro isbitaal Martini. kitaabka Qur'aanka Kariimka ah xaqa Alle subxaanahu wa ta'ala marar badan waxa uu ku xijiyay samafalka iyo xaqa ay leeyihiin labada waalid. عقوبة انتلق أيها كرلانيسا قف ضيع والدكي وحا إن لو ذاقيا شيخ عبد الحي شيخ آذن. عقوبة يعني واسدة ويالا بس نليلايا عاجلا أو آجلا دون كنا مدري ما سعادة يو فرحد مدري ما لأن مر والباء بس كحد يسوق وحياكو صورا مقالكي ووالدكي وقتهي مركادو اسكو دايو حتى إنه اسمه موجيسيو waa wax yani mar walba hortaagan midda kalena noloshan adduunyada la isma siinin waa wax yar oo la joogayo aakhirana dambi iyo qofkii kasbaday oo uga horeeya oo lagu ciqaabayo adduunyadana waxyaabaha Ilaahay uu dadka ku siiyo liibaanta risqigan oo waasiyo waxa kamid ah xiriirinta qaraabada la xiriirinayo qaraabada waxa ugu horeeya labadii qof ka dhashay yasalunaka maada yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin. ma aha Aadan Turaab oo kaliya waalidiinta lagu dayaco wadooyinka misna jirdil ay u geystaan dadka ehel ah, balse Martini waxaa soo maray dhacdooyin kala duwan oo tan oo kala ah. waxa ina la wadaagaya agaasimaha isbitaalka. ninkan odaga ah qofkii ugu horeeyay waay qof kale ayaa haddana isbitaalka sidoo kale la keenay oo asigana isla bishii Juulaay ahayd oo qof bani aadan ay cid ka daba timaado asna la garan waayay. nasiib xumo ninkaas isbitaalka kuma raagin. nin kale saddexaad ayaa isagana la keenay maxaa la yiraahdaa 26 Agoost aan u malaynayaa hadda sanadkan waa bari ayaa isagana xaafad habeen waxa la soo dhigay 6 saac. gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo madax kale dawladda ka tirsan ayaa qaaday habeenkii gurigooda geeyeen subaxiyana loo keenay. murugo iyo tiiraanyo ayay leedahay xaaladan oo kale. qaabkee ayuu u fakiray qof isku dayay in uu dilo waalidkii misna wadada ku soo tuura. maqalka qof kasta oo muslima ayay dhibaysaa xaaladan oo kale. dadka aan diimaha kale haysan islaamkiisana waxa laga yaabaa inay meel dhahan guryaha dadka waayeelka lagu haynta isaga tuuraan inay xanaanadii iyo naxariistii u baahnaayeen iyo waalidnimadka caadifadii u baahnaa inaysan helin. laakiin maxaad u malaynaysaa soo guriba la geeynin laakiin meel cidla laga tagay dhibka ka imaanaya cuqubada ka dhalanaysa wax la soo koobi karo waxa uu dhibaato badan. waa bukaankii saddexaad oo isaga oo wada ku dayacan laga soo qaado wadooyinka magaalada Muqdisho lana soo gaarsiiyo isbitaalka Martini. Aadan Turaab 2 bilood ee isbitaalka uu ku jiro ma jirta ilaa iyo hadda qof ka tirsan ehelkiisa oo soo sheegto, taasoo u muuqanaysa dayac aad u weyn oo loo geystay waalidkan. علي عمر عبد الله TV Shabeelle Muqdisho.